kartaan aniga taleefankayga qof ii dhibado dhow wallahi inta meel walba furo u dhiiba daawada sidaad muuqaalka ka arki karto waa baabajey oo kala cadeynayo oo maalmihii ugu dambeysay baryahan oo idil baraha bulshada muuqaal laga keenay u aastay muuqaalkaasi oo la wareejinayay maadaama baabajey hadalkiisa ama inuu soo hadlo mar horena baraha bulshada u si aan kulabadaaga fadlan nagu soo biro jan subscribe noo dhig gambaleelka u fur muuqaalkana like talaa wixii fikir aad ka qabtin qaybta commentiga noo la wadaag gacantana Allah ku barakeeyo soo dhawow daawada waxaan kula wadaagi doonaa xogii ugu dambeeyay baabajey oo mar hadda dhow soo hadlay oo baraha bulshadana muuqaalkiisa la keenay maadaama YouTube-kiisa uu ka soo dhex hadlay kana cadeeyay arinta iyo muuqaalka sirta baraha bulshada laga keenay in mobilkiisa lagala baxay qof ay saaxiibo yihiin ama qof saaxiibkiisa mar walba muuqaal la duubi jiray in uu kala baxay baraha bulshadana uu keenay una fadeexa la gaaday maadaama qofka kala baxayna uu yaqaan baabajey oo hadda YouTube-kiisa lagu darsaday oo xayeysiintii wixii lacagta uu ka sameynayo idilna habada laga bixiyay haddana uu waxba ku haynin YouTube-kiisa lacag ahaan ay dhex taal $3 lacagta u dhigmato oo na cadeeyay in ay gabar iyo laba gabdhood u dhaleen ay ka jiran tahay haddana uusan haynin biilki iyo wixii guriga iyo mishaarki maadaama dadka asxaabtiisa qof kamid oo mar walba muuqaal la soo duubi jiray oo dhabar jabkaani la doonay oo xaasid ku ah sida uu asiga ka cadeeyay baabajey oo sheegay qofkaasi in uu yaqaano laakiin siduu ii ceebeeyay ayuu yiri baraha bulshada ugu ma ceebeenay dadka simcada uu ku leeyahay kuma baadilayo kuma nadeesanay jabka uu ila rabeen uu igu la helay baabajey oo sheegay muuqaalka in asiga uu bareefad ah oo asiga uu u qarsanaa oo mobilkiisana xogo sir ugu jirtay oo badan qofkaasi in uu kala baxay maadaama baabajey uu ka cadeeyay dadka agtiisa joogay oo idil ama dadka asxaabtiisa in uu u arkay dad walaalihiisa oo ehelkiisa kamid ah aana marba xasdeenin ama horumarka uu gaarsiisan yahay aana ka maseereen baabajey oo sheegay hadda in uu nolosha meesha ugu adkeed ee taagan tahay uu taagan yahay uuna ku dhow yahay in uu social media oo dhan iskaaga baxo oo filimkii uu turjumaya astaan iyo waxaas in uu iskaaga laabto maadaama wixii hadda oo baraha bulshada laga keenay dadka Soomaaliyeed oo idilna sida uu ka cadeeyay in ay aad iyo aad u wadwadaan haddana uu kala cadeeyay dadka Soomaaliyeed oo idil maadaama uu u sheegay in xog sir ah mobilkiisa lagala baxay asigoosan oona ogeyn oonan ka warhaynin sida uu asigaba afkiisa ka cadeeyay xogtaasina uusan ka warhaynin maadaama uu hal mar leh ka warhelay in gruubyada Telegramka iyo TikTokyada lagu faafinayo iyo asiga oo la yaabna noqotay maadaama wax uu ku hadlana uu garan waayay uu la yaabay qof walaalkiisa uu ka dhiganaya in uu meesha la rabay in uu ceeb asturo ceebtiisa in uu baraha bulshada keenay baabajey oo hadda ku cadeynaya ama afkiisa ba ka dhahayo weliga Allah uu leeyahay qof ha aaminin ama qof ku doonaha noqdo aaminaad ama kalsooni haba gashanin muuqaalkiisa ayaan kula wadaagi doonaa daawada wixii fikraad ka qabtin qaybta commentiga noo la wadaag soo dhawow aniga taleefankayga qof ii dhibado dhow wallahi inta meel walba furo u dhiibaani qof xog walba aniga aan leeyahay u dhiiba aniga waxaan ogaa qofka inuu soo qofkii aniga aan soo dhaweystay oo wax walba aniga fiiri akoonkayga idoo dhan aan ku aaminay u dhiibtay qofkii haddana aniga ilo goynayo